بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا شيء سعدي اسمان علي سعدي ست صوب كسر دوادة جنال كينا سعدي ست صوب. هل كان محاوم هدرعنا لما أصحابتي شو المسألة بحرنات كوي يعني هوري بحرنا هذا وما سنتين جنال كساو سو حرمتين يسلا إلى سو حرتين يو باهي بدن ولا قبي أو دريمي مرك إن شاء الله أنا ذلك وسيلة ولا بايا دمانتين مرك waxaan ku codsanahay inaad share gareysaan si ay u arkaan dad kale walaaladiina oo u baahan barnaamijyada inay ka faa'iideystaan marka dhammaantiin aad u mahadsantihiin mahadiina inta lagu soo koobi karo marka shukran aad u mahadsantihiin maanta waxaan idin wadaa cream moisturizer ah jirka iyo wajiga la marsan karo oo herbal iska ah lighting aan lahayn waxba aan lahayn laakiin aad u fiican skinka qurxinayo saliida aad u fiican laga hagaajiye waxaan usoo gudbin doonaa qaab aada u sahlan oo qof walba uu fahmi karo qofka akaademika ah oo xisaabtii waxa ku fiican iyo qofka kaleba labadaba ay fahmi karaan marka insha allah daawasha wacan markayna keena waxaan u baahanahay Bolawax waxaan u baahanahay Bolawax waa emulsifier wax waaye shaqo aada muhiim ay u qabtaa كريم سيدي سليدة iyo biyaha laga hagaajiyaa wuxuu isdhex geliyaa oo cream ka dhigaa biyaha iyo saliidda marka la isku daro marka shaqo aad u culus ayuu haayaa meelaha qaar waxa ka helaysiin asoo qoranta emulsifier wax kambaniyasha qaar waxa weydiin kartiin Bolawax also waa same waa labadooda emulsifier badan ayaan kasoo hadli doonaa insha allah marka Bolawax waxaan u baahanahay 28 gram ah waxaan kaloo u baahanahay pumpkin seed oil oo iyadana 15 gram ah almond oil oo 32 gram ah olive oil oo 57 gram ah chia seed oil oo 42 gram ah shea butter oo 55 gram ah marka kulli meesha ay ku soo qori doonaan shea butterka kulli marka weelkeena soo qaadanayna laba face waaye oil face iyo water face marka hadda oil face kan isku dareena Bolawax waxaa ku dareysaa almond oil saliidaha wajiga koobaad ee saliidaha isku wada dar iyo waxiga isku dar way isku dhalaalayaan olifta ayaan ku darayaa pumpkin seed oil skinka aad ayay u qurxisaa aad u fiican tahay timaha maasha allah waa saliid aad u qiimo badan chia seed oil شيء بتحتاج بنية ولا علينا حين ماشي نهار على مرضنا حنا لو ماشي كهسنا بيو لو بقى إلى 26 جرام بيا ستيل وتاو في عام biyaha tubada macaadin fara badan ayay wataan oo in laga saaro u baahan marka steel water waa isticmaali kartaa waxa kale oo aad u fiican oo isticmaali kartaa ionized water ayadana waa isticmaali kartaa marka shea butterkana gees ayaan ka saaraya si uu dhalaalo kareemku waa kareem marka uu yara dhalaalayaa shea butterkiina wuu yara dhalaalay waxaan rabnaa shea butterkiina aan ku shubano waayo waxaan sameynayno waa kareem oo laba wajiga oo biyaha iyo wajiga saliidda face oil iyo
نوعان تحضر ير أيو ربا إن لصد قريو هير كل كيسين لصد قريو كنت اللي حيوسو قاري كروسوس على ستيل دبكام يرقاوي ومسارة مركز سليدي نويد على فيرينا تضبعت من ذكري اللي حدا ليشان كنت انت صدح حيسا ولا سوق ذكرى سليدو الديار واي بيها فيرنا نودني ترمومتر أو استعمال بتاع ترمومتر ونوعية بدني هاي مركا كيف سهل هذا ودقريقيس أدقيق كرتايا استعمال هسا مركا ديار واسكو شوينا بيكر كانوا بيدقينا مولينا بلاستيك أنسان شرطي حطوك درينا بسم الله بيهنا يقدرنا وشيدينا مركا دقريقا كعبرينا مركز أنكو درسانينا فيتامين إيغا يا بريزرفاتيف كوايا ويدمنا يعني ايغو كلولا دي لو دارو كرينكادي ina ku darsato umuleysa preservative laakiin dabka ayaa ka dilay waa inuu 40 degree imaado aad u soo qaboobo ama 35 meelahaas uu imaado insha Allah ma sha Allah diyaar waaye saddex galay caana camal ayuu noqday saliidihii iyo biyihii waxaa saddex geliyay emulsifier liquid ay leeyihiin wax ay leeyihiin sida loo kala isticmaalo waxyaabaha lagu daro insha Allah dhowr mar ayaan kasoo hadli doonaa marka diyaar waaye waxaan rabnaa inuu yara qabo emergency hadda u baahan tahay fridge geli haddaad emergency u baahnayn biyo qabow salka u dhig meel qabow dhig geedka hoostiisa geetalaalka hoostiisa taa waa dhigi kartaa Soomaaliya geetalaalka waa la harsadaa masha Allah meel waa ku yara qaboobi karo waxaan rabaa in maxay tahay la dhigo marka digrigiisaan fiirinayaa hadda digrigiisaan cabiraya insha Allah inaan ku dari karno preservative-ka iyo inaan ku dari karno preservative-ka ama vitamin E-ga 43 degree ayuu marayaa aad ayuu kulul yahay still naga dhimanaysaa wixii meesha xilliga uu qaboobo waa xilliga vitaminiska aad ku dari kartid waa intana agentiga aad ku dari kartid preservative-ka lagu daraayo inta ka horeyso waxa waaye immersion inuu dhaco si fiican isku dhexgalaan heerkulka saliidda iyo heerkulka biyahana waa inay iswaafaqi karaan ay isla mid yihiin ay isku degree yihiin ama ay iska daba dhow yihiin hal degree laba degree aad u dhaxaytaa dib ma laha laakiin iska hadii biyihii oo qaboow aad ku dartid saliidii kulul emulsion ma dhacayo mise dhexgalayso wixii ka halaabayaan marka screen-ka ku soo qori doona insha Allah degree-ga formulation-kii oo diyaarsan asoo percentage iyo asoo grams aan soo qori doona insha Allah marka qofka rabo inuu generalkii wax ka barto waa inuu helaa miisaan digital ah oo 1 gram iyo wixii ka yar iyo wixii ka badan uu cabiri karo waa inuu helaa waxyaabo heat proof dabka wuxuu la saari karo dabka waxaa kaloo isticmaali kartaa haddaad kuwan haysanin double boiler af Soomaali waxa waaye Soomaaliyeena digsiga biyo lagu shubaa dabka la saaraa weel kale la sii dhaxgelinaa weelkaas wax lagu dhalaalnaa sababtoo direct toosina loo geliyo dabka lama ogolo ama gas lagu shido ama dhuxul lagu shido lama ogolo xogaa wax badan damage gaarsiinayaan ingredients-kii meesha ku jira marka soo yara qaboojinayna insha Allah markuu yara qaboobo isku imaanayna marka fridge-kan soo bixinay soo yara qaboobay mar alla markuu qaboobo uu adkaana marka digrigiisa wuxuu marayaa fiirneena 27 diyaar waaye aad ayuu qaboob yahay
25 27 30 hadduu imaado xitaa 30 hadduu imaado xitaa ready waaye. waxaan ku dareynaa preservative gram marka preservative ku qaseenaa. preservative-ka ugu dambaysi kartaa vitamin E-ga waa isku midkaa soo hormarsiisid. vitamin E-ga soo hormarsiin kartaa, preservative-ka soo hormarsiin kartaa. marka waa isku mid waaye maadaama heerkulkii hoos u dhacsan yahay. waa isku mid. waxaan ku darayaa kale vitamin E. vitamin E 1 gram ku darsan 1% ku darsan kartaa 0.5. ما شاء الله كريم aad u qiimo badan meesha ka soo baxay. saliidaha aad control kartid. hadaad كريم oo commercial ah oo iska gadalen rabo oo dadka aniga wax ka gadeen customerska dhowr qayb ay kala qaybsamaan. quality matras ay jiro dad quality bas raadinayo wax kale aan gadanaynin. dadkaas marka target gareynaysid waa ka gadan kartaa. dadka caadiga ah oo qof walba inuu ka gato marka rabtid oo dadka mujtamaca u badan yihiin saliidahan ka raqiisan ayaa jiro. saliid la dhaho mineral oil oo Vaseline ayaa laga saaraa, petroleum ka laga saaraa. aad ay raqiis u tahay, skin-kana waa fiican tahay. inkastayna gaarin saliidaha organic ah. marka kareemkeeni diyaar waaye masha Allah. caadana ku shubeynaa. ما شاء الله كريم هذا قروح بدر. كريمada sida weelasha loogu shubo ayaan mar video kaga soo duubi doonaa insha Allah. adigoona machine aan isticmaalay laakiin xirfado kale iyo xeelado kale isticmaalayo. waayo marka hore aniga machine waaweyn inaan ka bilaawno ma rabno sababtoo waxaan rabnaa in qof walba uu sameeyo uu ka faa'iideysto. marka qofkii machine aad u baahan tahay hadii la dhaho wuxuu leeyahay markaa machine hesho un baad wax samayn doontaa. waqti badan ka sii dhumaayo. marka xeelado badan oo isticmaalaa jiro aan isoo gudbi doonaa masha Allah. focus walaalay sharafta leh ka faa'iideysta dhammaan. waxaan rabaa in aan arko iyadoo dad ay sameynayaan oo suuqa la soo geliyo. ma rabna anaga dad waxay soo hagaajiyeen la inaan gadno. waxaan rabnaa anaga waxaa sameysanay inaan gadno. waayo dadka wax hagaajiyo adigoo kale waaye. waan la bartaa cosmetic formulation, waa la bartaa diploma ayuu leeyahay, degree ayuu leeyahay. aad waxa waa qofku xiiseynayo u baran karaa. laakiin ma umaleynaa Soomaaliya in laga bar. laakiin waxaan rajeynaa insha Allah inaan koorasyo qaban doono oo industrial skills ah oo waxyaabo fudud qofku soo sameyn karo sida creamska, saabuunada, waxyaabo badan. marka kareemkeena waa kasaa wuxuu diyaar u yahay in la iibiyo. waa simi kartaa. aniga waxaan la tartamayaa daqiiqadaha video. marka gadayna insha Allah. marka waxaan rabaa kareemo badan waxyaabo badan aan soo geliyay. wixii aan soo geliyay dadkii dukaanka way imaanayaan waxay leeyihiin alaabtii u baahanahay aan soo gelisay. marka dadkii aaway dadkii bartay aan rabaa marka inay banaanka u soo baxaan alaabtii sameeyaan. maxay tahay sheeg ay ka faa'iideystaan.
oo youtube-ka ay soo galaan ay dhahaan qofkii raadinaya kareenkaan u baahan ay dhahaan anaa sameeya in la dhaho oo qofkii loo hagaajiyaa rabaa insha allah aada inuu fudud yahay marka waa diyaar waa kasaa kareenkeeni marka daarka kareemkaadi inaa qiimihiisii ogaato waxaa sameynaysaa alaabtii oo ka wixii galay aa la rabaa in qiimihiisi inaa ogaato markaa rabtid wax alla wixii kaa galay waad qoraysaa barayskii ku baxay saliidihii waagsigii wixii oo dhan biyihii wax walbo waa xisaabinaysaa wixii kasoo baxo waa garaaminaysaa intay kuu noqoto marka saasaad ku ogaan kartaa in maxay tahay masalan ka 200 hadaan gadi karo ama $2 aan gadi karo waa inuu qiimihii ani iga galay uu ka badan soo saari karo marka xisaab lay u baahan tahay qofku waa isku xisaabin karaa waxa aad u sahlan waaye bas in wixii ingredients-ka meesha ka gala qiimahoodiina aad u taqaanid iyo maxay tahay markaas ogaan kartaa shaygan iyo inta gram uu noqday waa loo qaybinaa marka waxa ku soo baxay 50 gram 100 gram inta ay kugu fadhisaa adiga lacag ahaan kadibna markaas aad go'aan ka qaadan kartaa inta gadi kartid oo dhihi kartaa aniga intaasaan gadi karaayo maxay tahay pricing waa intaas marka pricing-gana waxaa la sameeyaa dad pricing hagaajiya ayaa jiro pricing qaaba loo hagaajiyaa waxaa la rabaa wax walbo Soomaaliya aniga saa pricing u sameeyna looma sameeyo waxaa laga yaabaa qofkii inuu meeshaan u saarto 2,000 shilin Soomaaliya masalan laakiin oo dukaanka kiradiisii ay 2,000 ka mid tahay maxay tahay transportkiisa ay ka mid tahay maxay tahay wax alla talaab kastoo qaaday ee ka jarmayso waxaas faa'iido ma noqonayso waxaa la rabaa productiga aad soo saartay inuu kirada bixin karo maxay tahay transportkaada bixin karo faa'iidana aad heli kartid adoo dadka ku qaaliyeynaynin markaas cilmiyeysan loo price gareeyo price-kaadana mar walba inuu qaali noqdo dadka markay kugu soo yaacaan inaad kordhisid lama rabo marka waa kaas anaga 5 sano ka hor pricing samaystay alxamdulillah waxa ba ayagoo kaceen pricing still 5 sano hal price aan gadaya productiga waayo markii hore aan price list fiican aan sameeyay maxay tahay oo ihayn kara ilaa 5 sano 6 sano 7 sano anoo customer-kii lacag aan ku tarin still productiga waxna ka heli karo aan sii iibin karo marka waa kaas walaalay shirkadda la soo dhawaada waxaan sugnaaba waa dad diyaariyo oo sameeyo insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.